السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxamuud casharkan waxaynu ku qaadanay 10kaas eray meesha inoo saaran erayga koowaad waa scope waxa la yiraahdaa baaxad ama xuduud xuduud caadiga ah ee xuduudaha maaragtay wadanka u dhaxeeyo custom-ka maaha yani xuduud yani for example hadda aan ku dhaho anigu caafimaadka bartay hadii Dr. Maxamuud Kaalay qalinka samee oo qalin maskaxda for example anigana dhakhtar guud aan ahay waxaan leeyahay this is beyond my scope of training يعني waxaan waxay ka baxsan yihiin xuduudda trainingkay inta lagu talagalay ka baxsan yihiin scope qaabkaas loo isticmaala ama hadii kale she had a wide scope of knowledge in science aqoonta ay u leedahay sayniska aad bay u baaxad iyo xuduud weyn tahay ama aad bay u mug weyn tahay qaabkaas loo isticmaala arrange no isku micno secretary waa xoghaye waxa la yiraahdaa qofka xafiiska ka shaqeeyo shaqooyinkiisana for example mar uu shir qaban qaabinaha ahaato maruu waraaqa daabacay ha ahaato maruu booska maxay ahayd schedule timetable wax u sameeyay ha ahaato maruu waraaq isku dhajinay ha ahaato yani qofka xog hayaha ah macluumaadka xafiiskaas og nidaamiyo hagaajiyo ayaa waxa la yiraahdaa secretary caawiyaha booskana ama manager waxa la yiraahdaa assistant yes sorry for example the secretary arranged the meeting for Monday yani xogayaha shirka wuxuu qaban qaabiyay maalinta Isniinta ah yes please ask the secretary for the report fadlan warbixintaas waxaad weydiisaa qofka xoghayaha self esteem waxa la yiraahdaa qofka nafsiyan inuu soo kalsoonaado kalsooni nafeed qofka naftiisa inuu ku kalsoonaado waxa la yiraahdaa self esteem for example haduu qofku dhaho you have low self esteem waxa waayo adiga nafsiyan iskuma kalsoonid yes aad ba isu liidaa iskuma kalsoonid aadiyad low self-esteem can affect mental health يعني qofka kalsoonidiisa nafeed hadii aad u hooseyso xitaa waxay dhibaato u geysan kartaa caafimaadkiisa maskaxeed aadiyad erayga afraad semi detached ama semi detached waa dhigi kartaa semi detached semi detached waxa way laba guri oo garbaha isku hayo yani hal dhinac bay iskaga dhagan yihiin waa laba gurigan hal dhinac bay iskaga dhagan yihiin semi detached yes for example we live in a semi detached house near the park guri waxaan deganahay guri kale dhinac isku hayaan oo u dhow beerta lagu nasto yes sensational waa cajiib amazing ama fantastic isku macnaheeyin for example that movie was absolutely sensational yani filmkaas wuxuu ahaa film aad cajiib u ah la yaab leh amazing ah interesting ah fantastic ah dhamaantood waxaadayna amazing ahayna waxa iska dhahnaa this is ordinary yes marka sensational amazing and fantastic was kumid waa wax cajiib ah yes set waa ina wax meel dhigtid ama aad isku hagaajiso for example he set the table for dinner wuxuu hagaajinayay miis cashadu uu hagaajinay marka set waa ina meel wax dhigtid ama hagaajisid taas waxa la yiraahdaa set yes for example the teacher set a difficult test macalinka tokada wuxuu soo diyaariyay imtixaan aad u adag setback waa dib u dhac waxa la yiraahdaa dib u dhac yes delay waa dhigi kartaa for example don't let setbacks stop you yani dib u dhac aysan ka dhigin kuwa ku istaajiyo waa yes shebi waxa la yiraahdaa wax duug ah ama guri ha ahaato ama hotel ha ahaato ama yani book ha ahaado yani wax duug oo maxay ahayd dhamaaday ayaa waxa la yiraahdaa shebi wax dhamaad waxa kale English lagu yiraahdaa worn out yes for example his clothes looked old and shabby dharkiisu waxa uu muuqdeen kuwa duug ah yani kuwa duug ay u muuqdeen kuwa waayela duugna yani wax dhamaaday u eegaayeen marka shabby waxa la yiraahdaa wax dhamaadka shade waa hooska caadiga ah taqaanay for example geedada hoos taagan tahay oo qoraxda ku dhacdo hoos buu isbixinaa hooskaas waxa la yiraahdaa shade for example let us sit in the shade under the tree inu fariisano geedkaas hooskiis yes shade tan kale number 10 ka ah waa isku dhawaq ereyada isku dhawaqan English waxa lagu yiraahdaa homophones for example sun oo wiilka adiga dhasha ah sun oo qoraxda ah call sell oo xabsiga ah sell oo iibinta ahayd buy oo maxay ahayd soo gadashada ahayd bye oo qofka lagu macsalaameena marka sun buy sell send dhamaantood ereyadaas camal waxa la yiraahdaa waa isku dhawaq ereyada dhawaq iska shabahan waxa waayo homophones hada shade iyo shade labadaas ereyba midka sagaalaad waxaan dhahnay waa hoos midka tobanaad ee shade ah waa guri yar oo bakaarba af Soomaaliga dhihi jirnay yani guri yar oo waxa wax lagu store garay a small house where you store your things yes shade waxa kale oo la dhahaa for example qofka he shed tears ilin baa ka soo daadat
shed waxaa kaloo dhigi kartaa xitaa xuub siibasho. For example, the snake shed its skin. يعني maski wuxuu xuub siibto waay markuu yani iska dhigayo iska siibayo xuubkiisa waxaa la yiraahdaa shed. Yes, dhammaantood baa loo isticmaali karaa. Yes, aad iyo aad cashirka intaas ayuu ka yahay.